Qulaan waqti la'aani Qulaan waqti la'aani wa aqliyo ilaysaani wa aqliyo ilaysaani ogaada dugsiyada ogaada walaalayaal بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu soo u talagalnay cashiradan fasalka ee sideedaad inaanu soo dayno oo si joogto ah u qaataan ardayda fasalka sideedaad iyo cidii kale danaynaysa haduu Allah ugu daliidmo waxaanu ka bilaabaynaa chapterkii labaad cashirkiisii labaad cashir ku horeeyay insha Allah heli doontaan cashirka maanta aynu qaadanayna cutubka labaad waxa weeye waa xeerasha jibaarada weeye xeerasha jibaarada ardaygu inta badan wuxuu la keenaa xeerasha jibaarada inuu kala saaro keedna kulli 7 xeer ilaa 8 xeer weeyaan fasalka sideed laakiin waxa ku jira waa 4 xeer weeye 4 xeer baa ku jira xeerka koobaad aan soo qaadanayno waxa weeyaan xeerka isku dhifashada ama habka isku dhifashada jibaarada sidee baa isku dhifta jibaaro okay waxaanu tixgelinaynaa waxa weeye hooseeyaan tixgelinaynaa markasta oo aanu jibaaro isku dhifanayno ama aan isku qaybinayno qodobka labaad isku qaybin halka inoo yaala waxaanu tixgelinaynaa waxa weeye kuwa hoose horta markay soo qoran tahay jibaarku soo qoran tirada soo qoran tahay jibaarku dul yaalo kan waxa loo yaqaanaa waa base kana waa power base and power waxa la tixgeliyaa markasta la eegana waa base waa kooso weeyi ka hoose la tixgelinaya okay bal waxaanu ka shaqeeynaa fududeynaa example-ladeenan 1 2 3 habada koowaad waxa weeye waa laba lagu jibaaray labo oo lagu dhiftay laba lagu jibaaray saddex hore soo sheegnay waxaanu tixgelinaynaa waxa weeye waa base-ka weeye base-ka oo ah ka hoose marka ay isku dhifasho ka dhaxayso laba tiro oo base-koodu isku mid yahay ama laba teeram ama laba tibxood oo base-koodu isku mid yahay marka ay isku dhifasho ka dhaxayso labadan hoose mid baa laga soo qaadanaya waa goorma waa marka isku mid yihiin labada jibaar see loo oranayaa marka see loo xalinayaa meesha taal labada jibaar waa la isku daraa mar hadday isku dhifasho ka dhaxayso oo base-koodina isku mid yahay jibaarada waa isku daraysaa simbil waxa leedahay labadii jibaarkii sare oo lagu daray jibaarka ka labaad oo awoodatay saddex then base-kii aan soo qaadanay ee labada ahaa waan qoraynaa waxaan ku dul qoraynaa jawaabtoodii oo isku geyn ah waa 5 halka waxa ka cad marka laba tiro oo jibaaran ama laba xaraf oo isku mid oo jibaaran ay isku dhifasho ka dhaxayso ama xeerkeena koobaad isku dhifasho ah ay soo dhex gasho labada jibaaran baa la isku darayaa 2 ku jibaaran 2 oo lagu dhiftay 2 ku jibaaran 3 labadii tumid baan ka soo qaadanay waa base-kii labadii jibaaran oo isku keenno isku darnay in waxa soo baxaya laba lagu jibaaray 5 taasaasan kaga baxaynaa xabada labaantagu tan labaadna waa la mid waayo base-koodii waa b ku jibaaran 2 iyo b ku jibaaran 3 labadanba mid baynu ka soo qaadanaynaa labadaba mid baynu ka soo qaadanaynaa waxaan eegaynaa waxa ka dhaxeeya waa isku dhifasho jibaarada waa la isku darayaa saynu hore soo sheegnay waa laba lagu daray 3 equal ba ku jibaaran 5 bay soo baxaysaa iyana good example 3 ama xabada saddexaad haddii ay meesha yimaadaan 3 teeram ama 3 tibxood oo iyaguna base-koodu isku mid yahay jibaarkooda see loo oranayaa waa marka la isku dhifanayo waa marka isku dhifashadu ka dhaxayso saddexdii teeram ama saddexdii tibxood waa mid baa laga soo qaadaya waa la mid saddexdii hooseeyay mid baa laga soo qaadanaya ama saddexdii base mid baa laga soo qaadanaya jibaaradoodiina waa la isku keenaya waa la isku daraya waxa laga dhaxaysiin calaamada isku darida leedahay la soco labo waa saddex jibaarka waa saddex asuri oo lagu daray jibaarka ay wadatay base-ka labaad ee oo laba aha oo lagu daray base-ka saddexaad oo ee aha oo watay maxay 7 saddexdii jibaan maxaa sameeyay meel baan isku keenay inuu ka dhaxaysiinayna isku darid marka ay waxa soo bixi ee ku jibaaran laba lagu daray in hal in saddex waa 5 lagu daray 7na 12 aan ku ceelna markasta oo base-ku isku mid yahay jibaarada waa la isku darayaa saddexdan ee jibaarkoodii oo saddex ayaa waxaan ku darnay 2 waa 5 waxaan ku darnay 7 saddexdii hoose mid baan ka soo qaaday waa ee ku jibaaran 12 waxaynu tagay qodobka labaad oo ah isku qaybinta ama habka isku qaybinta jibaarada ama isku qaybinta jibaarada qof walba sidoo yaqaan
haddii English waxa division power baa la yiraahdaa isku qaybinta jibaarada division power waayahay halka waxaan ku soo aragnay habka loo yaqaan isku dhifashada kana muxuu ka duwan yahay kii hore kana base markuu isku mid yahay isku qaybin ka dhaxayso jibaarka la kala jaraya simple isku dhifashada marka ay base isku mid yahay waa la isku dari jiray isku qaybintana marka base isku mid yahay waa la kala jaraya kiiba ka soo horjeeda isku dhifashada ka soo horjeeda then labadii hoose ee base ka ahaa mid baa laga soo qaadanaya labadii jibaarna waa lagu dul qorayaa iyadoo loo bedelay maxay laga dhaxaysiinayo kajar iyadoo laga dhaxaysiinayo kajar okay waxaan soo qaadanay labadii base mid kamid ah soo qaadanay labadii jibaarna waxaan ka dhaxaysiinay kajar goorma la kala jaraya waa marka ay isku dhifasho ka dhaxayso laba tiro oo base-kooda isku mid yahay good waxaan qoraynaa marka laba ku jibaaran ee sagaal marka saddex ka jar maxaa soo hari jiray lix baa soo hari jiray waa laba ku jibaaran lix halka dhaaf mayno marka halka dhaaf mayno example-keeda labaad habka ama qaybta isku qaybinta waa 10 ku jibaaran 8 oo loo qaybshay 10 ku jibaaran 4 labadan base waa isku mid isku qaybinna way ka dhaxaysaa labada jibaar ma kala jarayna labada hoos mid ka soo qaado labada jibaarna hala kala jaro 8 laga jaray 4 la marka waxa soo baxaya 10 ku jibaaran 4 10 ku jibaaran 4 example 3 oo habka isku qaybinta ah ama isku qaybinta jibaarada ah waa 9 ku jibaaran 11 oo loo qaybshay he 9 ku jibaaran 7 labadan hoose mid baan ka soo qaadayna sida caadi ahayd maadaama ay tahay isku qaybin labada jibaarna waa inuu kala jaraynaa sababtoo ah waxa ka dhaxaysa waa isku qaybin weey waxa soo baxaya muxuu noqonayaa marka 11 laga jaro 7 waxa soo baxaya 4 9 ku jibaaran 4 power 4 9 power 4 ama 9 ku jibaaran 4 okay haddii aynu cashkeena soo gunaanadno labada qodob ee soo qaadanay cashka la yiraahdo xeerasha jibaarada la yiraahdo waa habka isku dhifashada iyo habka isku qaybinta ama isku dhifashada jibaarada iyo isku qaybinta jibaarada isku dhifashada jibaarada marka ay base isku mid yahay labada jibaar baa la isku daraya labada jibaar baa la isku daraya base kan mid baa ka soo qaadanaya habka isku qaybinta ama isku qaybinta jibaaradana marka base koodu isku mid yahay labada jibaarun baa la kala jaraya tusaale ahaan laba ku jibaaran 9 oo loo qaybshay laba ku jibaaran 3 labadii hoos mid baan soo qaadanay labadii jibaarna waanu kala goynay